الله ما هتسكله إلهنا نمهد علنا مرور بوانو واجب ومركي وسهل أنت هاي أنا جهوش يعني أنا نفوذي يمرات كان كله هين UN كا يهال كان أنا مانو إذا كان إذا إذا فوذينا هال كان تمادان أو قار كين الملف فوق كان تمادان وعن رجينا إن شاء الله سنة وضع قفر بنو ونقض هويجيس يقوليس وحان مهد علنا يا سفيرك يهال وذا النضح سفارته oo sidii la sheegay runtii shaqo aad iyo aad ballaaran qabtay oo suurtageliyay runtii inay waqti badan iyo dib badan galiyaan sidii loo heli lahaa location kan oo anigu waa kala qaadna magaaladan ay tahay meel prime area ah oo muhiim ah oo safaarada badan ay ku yaalaan waxa la filayo waqtidan oo kale in aan hadaan nahay Soomaaliya xaaladdan ku jirno meel fog oo luqluq ah ina ku dhumano لكن الحمد لله إلهي وما هذا أسكاله إن ذكي وحنور هذه يعتبرتنا سجني وناصر تكشي إن المانت ماشان سوي مع إنه سفارة على هالكن هنكفرهم وحنو مهد علنا يا جالية صوماليات مالك كان في الفوق كيمت يكوا DC إيو فرجينيا حبرة هذا نوجي يمت أو كسوق قبلي حفلتان وجعلان لها sidii la ii doortay hadda ay ugu horeysay inaan Mareykanka ku soo noqdo oo qorsheygu uu ahaa inaan tago Minnesota iyo Ohio iyo Boston iyo Texas iyo Toronto naftigeeda sidaan u kala hormariyeen waxa way sidii noo taageereen waagin qaran aad iyo aad aan runtii uga mahad celinayaa taageerada mar walba ay u hayaan dawladda iyo wadaniyadooda mar walba ula taagan yihiin inay taageeraan dawladooda insha Allah waa idin soo noqonaya sida ugu dhaqsiyaha badan meelahaas aan sheegay waa booqanaya haduu ay biiraahdo ma insha Allah waxaan u mahad celinayaa golaha wasiirada oo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo oo runtii beeqaamiyay oo suurtageliyay sida wasiirku uu sheegay inaan hantidan oo dawladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed hantidooda oo naga wada dhaxaysa in wax loo beeqaamiyay wax loo meel dhigay si ay u suurtoodo safaaradan oo ay ku taalo Washington oo ah dawladda Mareykanka oo aan nahay saaxiib aad iyo aad u dhow strategic ally aan nahay marnana ayna kala maarmin inaan ku yeelano hantima guurta ah runtii wasaaraha iyo golaha wasiiradan runtii uga mahad celinayaa iyagoo ka jawaabay ballanteennii hore oo ahayd in Soomaaliya qabkeedii aan soo celino waana ka hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo maanta wanaani weyne maanta wanaani maanta wanaani weyne maanta wanaani maanta runtii farxad weyn iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad iyo aad loo soo qaban qaabiyay quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynayso xafiisyada u noqon doona aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay aniga hadda meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay waa aqaanaa xaaladaha la soo maray marxaladaha la soo maray waa aqaanaa markaan taariikhiyan kaga taabto runtii safiir walba soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dawladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurta ah oo safaaraddu ku shaqeyso waa lagu guuleystay in hooygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo waliba laga iibiyay meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yiraahdo magaciisa wali ma leedahay meesha oo ay deganaayeen dawladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh ilaa markaas naftigeena madaxeena waa taagnaa waxaa la rabay in lagu xujiyo marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dawladaha Carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go'an oo meel wanaagsan ku taala aniga waxaan ku soo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan
oo habeen iyo maalin ku soo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay waxaa kaga dambeeyay oo horeen u joog jiray Cabdullaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu hore u gaday raba inuu dhameystiro inuu Ilaahay ku soo celiyay isaga naftigiisana runtii dadaal badan u galiyay ilaa hadee markii ugu dambeysay xaalad iska halawday hadee safaaradii oo dhan baan ku weynay marka iyo magaceennayba wixii 91 ka dambeeyay alxamdulillah hadda Ilaahay annagu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadano safaaradda mugta leh oo meesha wuxuu ku taala si aan u soo celino saan sheegay karaamadeenii iyo sharafkeenii iyo qabkeenii waana intii aad ugu taageerayseen maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow in la rabo in la soo celiyo sharafka Soomaaliya sharafkeena inaan soo celino sharafka marka annaga ajandayaashana loogu horeeyay waxay ahayd inaan qabkii Soomaaliya soo celino oo aan annagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaan ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waana doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto hadda waxa weeye wax moogtahay waa wax dheeraad ah marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahayna siiyay marka qabkeena inaan soo celino sharafkeena soo celino karaamadena soo celino laba waxa noo ahaa inaan helno maxaan ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer keentay meesha aan taaganahay oo foosho xun inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba xasilooni ma jirin haddaysan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaas waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka sidoo ahaan jiray waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan hadda fiiriya safaaraddan waxaan ku iibinaa idin sheegayaa oo sir ah waxyaabihii la isku rigi jiray yaan meel dhignay ma fahamteen madaxweyne iyo barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen hor xasiloonida waa meeshaas meesha ka amaanayso dal hadduusan xasilooneenna cid aaminaysa ma laha cid kulama caamilaysana ma laha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminaya inay sii shaqayn karaan beesha caalamkaana kulama shaqayn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaaga waxay noo ahayd iyada naftigeeda dee waxa kaliya ee dowlad ku shaqayso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabkana ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhaxayso taasa marka waxay keentay inaan bilawno maxaan ka bilawnaa dhismaha xagee ka bilawnaa inaan safaarada ka gadanno xagee ka bilawnaa inaan soo celino adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilawnaa nasiib marka waxaan u yeelanay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dawladda Mareykanka inaan ku yeelano meel biri aan ugu lahayn waa ka baxaysaa ama waa ka guuraysaa meel dhulkeeda adigu aan leedahay dhismaheedana aan leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulkii burburay oo dhan safaaradaheennii bacdama burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradaheennii iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftigoodii inaan dib ugu noqonno safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqonno
oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno safaarado cusubna iibino kow ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yiraahdo dhaqaalahan haysan dhaqaalo badan maaha dal faqri aan nahay dalkiisu kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yiraahdaa canshuur badan dadku aysan bixin dadkeena diaspora oo dibadaha jooga naftooda aysan gadaal soo fiirin macnaha wixii ka badan familkoodii aysan gadaal soo fiirin laakiin waa dad wax nala laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan ma sha Allah ha marka runtii dhaqaalehen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama naxadin ama jabka aan la gashanayn waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakay leedahay oo waxbaa lagu qaban karaa hawshaasaan ku shaqeynaa bacdama aan khibraddeeda leenahay musuqmaasuq wuxuu yahay qabyaalad iyo kala qaybsanaan waxay tahay khibraddeeda aan leenahay colaad meesha na gaarsiisa aan naqaano khibrad naga maqan ma laha marka wixii hadda naga maqan waa caqli iyo aqoon ilaahina waana siiyey oo dadkii ilaahay doortaan nahay oo Soomaali ah soo saas ma waxaan waxa weeye waa dhaxal Soomaali ah weeye oo annagu runtii dadkii naga horeeyay ay ahayd inay nooga tagaan laakiin waa dadaaleen waxay qaban kareen waa qabteen lama eedeenayo wixii hadda ka dambeeya waa annaga marka annaga maamulkii baan nahay kaliya maaha in waxna laga sheego waxaa la rabaa taakuleen gacan inaad na siisaan oo garab noo noqotaan oo taageertaan dowladdiinna waxaani waa dhaxal ummadda Soomaaliyeed leedahay insha Allah hadduu ilaahay yiraahdana waxaan rabnaa 20 sano ama 15 sano ka bacdi xaaladdeena iyadoo sidaan si ka sii fiican inaan meeshan uga sii guurno meel ka sii weyn oo ka wanaagsan waxa weeye dhaxalkaasi waxa weeye dawladda oo iyadana fiican wada leenahay waa dhaxal cid gaar u leh maaha dadku isku khaldaan maamulaha iyo dawladda waa idinka marka dawladda caayaysan idinkaas caayay waa xaqiiq hadda madaxweynaha caayaysan idinkaas caayay maxay idinkaas taan qaran iga dhigtay aniga marka qof caayay ka warrama marka dawladdan idinkaas kale maamulkeeda marka waa lagu kala aragti duwan yahay inaan lagu talax tagin yaa loo baahan yahay in la istoosiyo mucaaradku waa fiican yahay in la istoosiyo oo la isaxo waa loo baahan yahay laakiin in la dumiyo looma baahna maxaa yeelay waa dhaxal weyn haddii la dumiyo waxa raaya mala annaga haddii hadda sabtaan sameyn lahayn kuwa naga dambeeya waqti un baa naga halaabi lahaa waqti naga khasaari lahaa 5 sano ka bacdi laga yaabaa kuwa soo socda inay sameyn lahaayeen ama 10 sano ka bacdi waxa weeye marka aan wada shaqeyno marka oo qof walba dawladdu uu dareemo in isagu wax ku leeyahay oo wax ku darsado intaan in ka badan waa gaari karnaa waana leenahay oo kartideeda caqligeedana waa aynaa laakiin waxaa la rabaa in dawladda markaas joogta gacan la siiyo waxaa jira qad aan la gudbi karin qadkaas in la iska ilaaliyo maxaa yeelay waa soo aragnay burbur waa soo aragnay dhib badan waa soo aragnay qax waa soo aragnay dawlad la'aan waa soo aragnay safaarad la'aan waa soo aragnay hanti la'aan waa soo aragnay iyada naftigeeda waxa lagu gaari karaa waxay tahay wada jir iyo midnimo dalkiina marka dalkiina iyo dawladdiina ما شاء الله باشا حماسة دورا كم وقتها مركب وحباها كلها كرننا وحا مصير إنسان معاه عبد الله وحا قبل إنسان وناك وحا قبتين نفتينا إيه دلكيني دول مدينة محايا الدول من هدايا حنتها هاي هذه لقوم احترامها صباقرن باسبور كاغا لما احترامها مركب لقوم صومالنا جيس بحر القلية محايا القرية قاحد marka gurigiina wanaajiya gurigiina hagaajiya madaxdiina ixtiraama
وحوي قفل بوقته ليه قف كاسنا شقوا هيا شقدوا هيا مالين والبوحبو كدري marka waxa loo baahan yahay annagoo wada jirna dawladdeena inaan dhisano annagoo wada jirna dalkeena inaan dhisano oo qof walbaba wadaniyadii iyo patriotismkii aan lahaan jirnay qof walba soo celiyo qabiil wax waana tari waay qof jeclaysin wax waana tari waay qabyaalad waana tari waay waa in loo noqdo marka meeshii aan naqaanay oo Soomaali isku duubnayd oo ay wax wada lahayd oo wax ugu horeeya wada lahayd ee ahay dawladnimo iyo dal iyo dad وما سنتيهين وحان ربا جالية إنهم لا دردارمو أو أن فرين أدرو جالية الصومالية أو كل نول مريكنكا هي كندا هي قربها جود أهان إن دولته دقالة إيه كما هيشوا دولته دقالة وحكاية شدت كذا هي سيدة وقع فرينيين أي وطنيين ويهين باتريوتيك ويهين سيدة الله شيء إن waxa weeye waxa la idin rabaa inta hartay inaad sameysaan oo ah in safiirka gurigiisii iyo qonsuliyad aan sameyn doono iyo guri martidii soo degto intaba waa ka adagna hadduu qof kastaba xoogaa lagu qori uu keeno intaas in ka badan waa sameyn karnaa intaas waxaa dheer bacdama dalkii iyo dawladnimada leedihiin iyada naftigeeda qorshe in la sameeyo oo annaga qorshihii aan keenno oo safiirku iyo howlwadeennada safaaraddu ay ka shaqeeyaan in qof walbaba uu wax ugu tabaruco uu bixiyo dalkiisu u bixiyo maxaa yeelay waxa annaga aan qabanayno oo aan ku darayno waa wax idinka wada leedihiin diyaar mudan madaxweyne diyaar waxa wada leedihiin way annaga shaqadii kaliya shaqaalaanahay shaqadii kaliya yaan idin haynaa kaliya tan labaad waxa weeye dad badan baa degan oo aad u fara badan saameyn badan aad leedihiin marka isku duubantihiin oo wadaniyadiina aad leedihiin saameyntaasi waxaad uga faa'iideyn kartaan dawladdiina yaad uga faa'iideyn kartaan maxaa yeelay saameyntaasi qof walba oo Soomaali ah waxbuu hayaa qof aqoon buu hayaa qof dhaqaale hayaa qof ganacsi uu hayaa intaas markii dawladda aad la joogtaan oo si fiican ula shaqeysaan saameyntaasi waxay gaaraysaa dawladdiina iyo dalkiina gaaraysaa markii aad u shaqeysaan kali waxa weeye waa soo aragnay laakiin markaan wada shaqeeya safaaradda waxaa laga rabaa iyadana marka jaaliyadaas inay abaabusho oo runtii ay maxaan ku raahdaa orientation badan siiso oo ay ugu tagto meelahay degan yihiin ay macluumaadka dalka uu marayo ay u sheegto waxyaabaha meelaha lagu soo qoro inta badan waa been ogaada waa beentaas markaad maqashaan waxaad ogaataan maalmo ka bacdi inay been tahay haddana been kale waa rumaysanaysaa haddana waa ogaanaysaa inay been tahay marka waxaa la rabaa filter inaan lahano oo wixii ladiin sheego aydan aaminin marka dawladdu safiirka iyo howlwadeennada ka mas-uulah inay tagaan ay dadku warbixiyaan annagana wasaaradeenna informationka iyadu naftigeeda ay warbixin samayso oo ay dadka la hadasho insha Allah si aan u mobilize gareyno shacabka dibadaha jooga safiirka iyo howlwadana waxa laga rabaa dadka Soomaalida ah waxtarkooda inay ka faa'iideystaan ilaa dadku isku level ma inay ka faa'iideystaan waxa laga rabaa inaad kala shaqeysaan sidii loo gaari lahaa dawladda hadday tahay sidii loo gaari lahaa ganacsatada si dalkii loo maalgeliyo haddii ay tahay jaamacadaha iskuullada si loo gaaro hadday tahay jaraa'idyada been baa lagu qoraa maxaa yeelay markii la yiraahdo Soomaaliya waxa ka soo baxay wax xun waa dad idinkoo kala afaafiyo waxaas oo laga yaabo qaarkood inay Soomaali yihiin laakiin waxay u sameynayaan ma yaqaanaan marka jaraa'idaas iyaga naftkooda la gaarsiiyo annagu inaan nahay dal hore u socda dad recovery sameynaya oo runtii meel weyn higsanaya dawladdu wax kasta iska aato ilaa waa adige iska dhex fiiri soo ma garan iska dhex fiiri inaad tiraahdo dawladdu waa wanaagsan tahay laakiin waxa laga yaabaa meelo in loo baahan yahay inay wax ka saxdo marka safaaradda iyo howlwadeennadu waxa la rabaa inay saas iyaga naftooda u shaqeeyaan oo dawladdu ay gaaraan maxaan ku raahdaa dadyowga Mareykanka ah ay gaaraan idinkana aad u noqotaan albaabadii volunteer aad ula shaqeysaan hadduu Ilaahay yiraahdo hadalkayga waxaan ku soo gabagabeeyay
إلهي وحن إلهي وقبر يا سوماليا إلهي إسراعه وأن يلونه إلهي قلوبته إنه سعليه إلهي إنه علاده إنه بطل كساره إلهي سومالي إنه قوليه ووحي هيستان وإلهي تصوه إلهي وحي بار هيسناي إن شاء الله دو الله يراد وكسر نقول يا حفلة أنت كوينا واسوي معنا إن شاء الله دو الله يراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.